maxaa faa'iido ah haddii aad lacag badan haysato misana ay kugu jirto sanduuqaaga aad lacagta ku kaydsanayso amba ay kuu taallo bangiga markaasi aad lacagta dhigatay. Dad badan ayaa maanta waxay ku faanaan inay leeyihiin hanti aad u fara badan, balse su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay lacagtaasi bangiga kuu taala ma tahay mid kuu shaqaynaysa mise waxa weeyaan mid meesha iska taala. Buuggan loo yaqaano The Richest Man in Babylonia ayaa waxa uu ina leeyahay saaxiibayaal, lacagta kaydsan waa bilowga hantidaada, halka lacagtan shaqaynaysa ay kuu tahay tan hantidaada mar walba dhisaysa. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa qodobka saddexaad ee ku jiray buugga loo yaqaanay The Richest Man in Babylonia. Haddaba qodobkan ayaa wuxuu inoo sheegayaa sidee lacagta kaydka kuu taala aad uga dhigi lahayd mid shaqaynaysa misena kuu keenaysa oo kuu dhalaysa lacag kale. Magacaygu waa Mr. Haybe, kusoo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta. Arkaad waxa uu asxaabtiisa u sheegay in qofka doonaya inuu hantiilo noqdo kaliya uusan ku koobnaanin inuu lacag kaydsado, sidoo kale waa inuu lacagtiisa ka shaqaysiiyaa. Sababtuna waa iska fududahay oo qofku hadduu lacag maanta meel dhigto lacagtaasi marnaba ma samaynayso korriin fara badan. Haddii aad si xikmad leh ganacsi ugu bilowdo ama markaasi aad u maalgashato, waxay bilaabaysaa inay lacagtaasi ku keento lacag kale oo ay ku dhasho. Sidoo kale arkaad waxa uu sheegay asxaabtiisa lacagtu waa addoon kuu shaqayn kara mar kasta, balse hadafku waa inaad ka dhigato lacagtaada shaqaale kuu samaynaya amba kuu soo saaraya lacag aad kaydsato. Tusaale ahaan, nin lagu magacaabi jiray Xasan ayaa waxa uu haystay lacag gaadhaysa $1. ninkaas waxaa horyaalay keliyata laba option oo ah inuu lacagtaasi kaydsado amba inuu markaasi lacagtaasi geliyo mashruuc yar oo markaasi u samaynaya lacag fara badan. Bilaabay inuu lacagtiisii maal geliyo, balse lacagtii muddo kadib waxa u soo saartay oo ay u dhashay lacag kale, taas oo lacagtan dambe ay noqotay mid ka badan lacagtii markii hore uu ku maalgeliyey. Haddaba halkaa waxaan ka ogaanaynaa ma aha keliya waxaa lacagtiisa dhisay shaqada uu qabanayay, balse waxa weeyaan lacagtiisa oo u shaqaynaysay misena uu ku maalgashtay ganacsi yar oo aad u fudud. waxaa jirta awood aad u weyn oo loo yaqaano isku taranta. Tusaale ahaan, haddii aad maanta lacag yar hesho oo aad maalgeliso, waxay kuu dhalaysaa muddo kadib lacag kale oo fara badan, isla markaasna waxay lacagtu u koraysaa sidii geed la waraabinayo oo kale. Haddaba haddii aad muuqaalkan cashar ka baranayso, waa inuu noqdaa midkaani lacagtaa ka dhigin marti gurigaaga joogta, balse ka dhig shaqaale kuu shaqaynaya adiga. Sidoo kale waa inaad isweydiisaa su-aashan, lacagta ma aniga ayaa u shaqaynaya mise iyada ayaa ii shaqaynaysa? Haddaad maanta $1 heli lahayd, sidee ayaad u maalgelin lahayd? maxaase ku qabsan lahayd? ma kaydsan lahayd mise ganacsi ayaad ku bilaabi lahayd oo sidii Xasan ayaad ka faa'idi lahayd? Magacaygu waa Mr. Haybe. Haddaba haddii aad nagu cusubtahay saaxiib nagu soo biir, haddii hore noola joogtayna muuqaalka like noo saar.